الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي mahad leh subxaana watacaala ilahay ba keligii mahad leh ilaahigaa inoo soo celiyey dhalinyarteenii baa mahad leh ilaahigaa xaqa tusay odayaasha ka shaqeeyey baa mahad leh aad iyo aad waxaan u mahad celinaa civil society-ga aynala joogaan Bashiir iyo Faysal iyo maxamed xasan hawsha ka gaaran ilaahay ku guuleeyey waxaan u mahad celinaa salaadiinta ismada Suldaan Ciise iyo Suldaan Garaasa Garaasa isku tabliiq baan ahaan jirnay bariyahan mooyee maanta markiiskii insha Allah nabarkayga telefoonkan ku soo diri doonaayo waayna wada xiriiri doonaa anigu horaan waxaan ku yiri Puntland waxayna dheer tahay hablaha iyo ismada anagu Cabdiwaraab aan dheer noon jirnay odayo naga xanuunsanay aad u gabaway waxaan wax caada ahaan inoo ahaan jiray maaha dhaqankeena afduub muuhan laakiin waxaa keenaya tamar daraanta dawladaha jira ayaa keenaya meeshii uu yahay dawlad adeeg ka jirin nidaam adeeg ka jirin sharciga waxa lagu qaadanayaa gamcaha marka waxaan leenahay waxaan yaan inagu bilaabmin aynu ka hor joogsano tana waa wanaag fiican kii dambi galay iyo kii nagu soo carramay la isugu celiya oo qof dambi galay inaan magaranaysaa meelna ku dhumana taasna horena waa ku sameeysan waa soo celisan rag badan oo dambi galay oo dad lahayn waxaan wali celiyay ayaan ku sameeyna waxaan jeclahay inaan ku darsay kelmad ahayn fidmada ka socota Garowe ee aan Tugara soo socota waxaan leenahay wax laba meelood oo kala taaganahay anagu waxaan leenahay xuduudaha dagaalada wada sameeysan midna malaa'ig ma sameeyay xuduuda war dheer iyo taa magaranaysa Tugara way noo sameeyay labada gaal sameeyay adduunkaas ku dhaqma Israel wax lagu doono Soomaaliya ugu horeysay in Israel ku doonato damcada in laba jeer Ethiopia ay ka soo jarto way socon weeyday naatiyo weersa isku keentay xuduudaha ma taaban karayo inaan markaa wax bilaa macna isku jilan suurtagal ahayn doorta ma fiicna xalatahay meel fiican waa iska taagtay reer Garowe xabadu ma gaarisa gaalkacayo doosaas ma gaariso ay gaarisa Garowe gaarisa xalatahay in fidmaadka la joojiya maanta Soomaali uma baahna dhimasho magaceedu uu dhintay maamuskeedu uu dhintay labadeena meelood baa hadda adduunku ma jirta in markaa fidma la inagu abuuro wax inagu aan ka wada hadli karno xabad inama dhexdeen ma dhici karto boqol wada jirto inoo furano ka xaajoon karno ay jirto waxaan isla maandaf yimaada arintaas waxaan leeyahay saa ka ciyaar roolkiina annaga xaggan sima kuma hayno idinka wali xilkeygana qaata kii magaalada reer Soomaaliya idinka aan dusha ka saarnay aad iyo aad loo mahadsantihiin tan arinta inankaana anu sheekada aad uma hayade in sharciga la raaco wixii sharciga banaanayo inuu si fiican loo baadho fiican hadalina arintaas dilba meeshii yimi farxumaatimi qurba baxday waa in laakiin si diinta islaamka aan ku noqonaa oo lagu celiyo culimada oo bil laga qaataa baa la taday xukuntay maxkamadii taasaasan ku talin lahaa aynu isku furnaano oo aynu baamisharaha isku furnaano qalbigu ha isku furnaano xididnimadu iyo riximkuna ha isku furnaano siyaasaddu waa gaar laakiin boqol kale oo meelood wax iska nahay inaga jaara amaga waxa taas waxaan jecelahay inaan ku wada shaqeyno hadii la yiraahdo wana mahadsanyihiin dhalinyartan ka shaqeysay alxamdulillah rabbil caalamiin waalidkiina waa ka neefiseen alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay inta xumaan hayno joojiyo insha Allah taala aynu wanaag isbarno xumaanta iska farno adilaade tabliiqi wanaag la joogo Garaasa waa amiirka insha Allah taala si fiican uga qaadan doona isla xilkiisa wana mahadsantiin aad iyo aad baa mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh